xildhibaan cabdirasaaq maxamuud jaamac aar oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka burco ayaa shaaca ka qaaday in dawladda hoose ee degmada burco ee uu ka tirsan yahay ay ku fashilantay waxqabadkii loo soo doortay ee ahaa inay horumariyaan degmadooda isla markaana ay waxqabad muuqda tusaan bulshadii soo dooratay. xildhibaan cabdirasaaq aar oo xalay ka hadlayay xaflad qalajabineed oo loo soo xiray arday ka baxday dugsiga Orbit International College ayaa waxa uu halkaasi xildhibaanku ku cadeeyay halka uu salka ku hayo muranka iyo khilaafaadka hadhaya golihii deegaanka ee Burco. waxaanu xildhibaanku sheegay in dawladda hoose ee degmada Burco ay la circirayso deyn aad u badan oo ay ku leeyihiin ganacsatada iyo shacabweynaha reer Burco, isagoona xildhibaanku cadeeyay waa sidoo hadalka u dhigay in ka badan 700,000 oo dollar oo deyn lagu leeyahay dawladda hoose ee Burco, isla markaana ay dawladda hoose deyn weli ku socoto. waxaana hadaladiisi ka mid ah golihii deegaanka Burco uu saystay golihii deegaanka Burco uu murmayay may qurux badnayn dadkiina soo doortay hortooda inaan isku yara qabsano. haddana waxaan doonayaa caawa inaan yara taabto xaqiiqada iyo muranka halku salka ku hayo. maalintii golaha naloo doortay waxaa naloo dhaariyey inaan hantida ummadda ilaalino, inaanu horumar ka shaqayno, inaanu sinaan iyo cadaalad ka shaqayno. sida runtiiya golihii deegaanka aad doorateen annagu waxaanu sii dooranay fulin maayad iyo mayr ku-xigeen baanu dooranay. maayad iyo mayr ku-xigeenka waxaanu u igmanay inay howlmaalmeedka dawladda hoose ay fuliyaan. waxaanu u igmanay bajedka degmadu leedahay oo 25 bilyan ka badan inay maamulaan. waxa keenay khilaafka waxaanu oranay degmadii oo hoos u sii socota. degmadii 25 bilyan miisaaniyadeedu ahayd oo amaah ku socota, amaah ku jirta in ka badan 700,000 oo dollar oo deyna ayaa shacabka Burco nagu leeyahay. waxaa nasiib darro bangiga Burco sanadkii hore waxaan ka amaahnay 600 milyan oo Soomaaliland shilin ah. nasiib darro maamulka baanku annagoo tii hore iska bixinay oo 450 milyan ugu harsan tahay ayuu 300 milyan saakayna siiyay. waxaan u arkaa inuu fadhiisanayo degmada 750 milyan Burco ma qaadayso deyna bangiga ku leeyahay. maalin media waxaad ku arkayseen kaalintii shidaalkii joojisay 270 milyan bay yeelatay oo nin ganacsada hantidiisa hadday soo noqon weydo wixiisa uu haysanaya. saaka shirkadda isbeelbarkana siin jirtay 250 milyan bay soo qortay deyna. deyntan aan lagu qiyaasay Burcaan lagu leeyahay 1 milyan oo dollar bay gaadhaysaa. iska bixin kara mayso haddii deyni timaadana degmadu ma soconayso. sidoo kalena xildhibaan cabdirasaaq aar oo ka mid ah golaha deegaanka ee Burco waxa uu ku eedeeyay maayirka iyo ku-xigeenkiisa inay ku fashilmeen xilkii loo igmaday, isagoona xildhibaanku kula taliyay maayirka iyo ku-xigeenkiisuba inay si sharaf leh xilka iskaga casilaan ama ay soo hor fadhiistaan xildhibaanada golaha deegaanka. waxaanu ku talinaynaa horena aanu ku talinay annagoo danta degmada ka talinaynaa maayirka iyo maayir ku-xigeenka jooga si sharaf leh inay soo casilaan xilka ummadda inay uga degaan. waxaanu leenahay waad fashilantay waad ku celinaynaa iscasila baanu ku ugu dambeyntiina xildhibaan cabdirasaaq aar waxa uu baaq dheer u diray waxgaradka, odayaasha, dhalinyarada iyo maamulka gobolkaba, isla markaana ugu baaqay dhammaantoodba inay la xisaabtamaan golaha deegaanka ee Burco. soo koobaya waxgaradka reer Burco, dhalinyarada reer Burco, odayaasha reer Burco, maamulka gobolka ka degmada dhammaan in la isugu yimaado degmadii oo la xisaabtamo. inna la xisaabtamo ayaanu diyaar u nahay. inaanu ummadda horteeda uga caddaynaanu diyaar u nahay. maayirkiiyo mayr ku-xigeenka haddaan iscasilaynin horteedaa soo fadhiisaan hanala doodaan. media ha yimaadaan hanala doodaan. fagaaraasha ha yimaadaan ha doodaan. si kastaba ha ahaatee dadweynaha ku nool magaaladani Burco iyo nawaaxigeeda ayaa ka rajo beelay waxqabadkii dawladda hoose ee Burco, waxaanay dadweynuhu quusis ka taagan golihii deegaanka Burco ee ay soo doorteen, iyadoona ay dadweynaha dhagahooda ka badatay muranka iyo khilaafaadka daba dheeraaday ee ka dhexeeya golihii deegaanka Burco. xabiib Saciid Xasan, Somaliland Today, Burco.